kadib marka cabitaanka aan cabay baa igu dambeysayba inaan miyir dhaban bay igu dambeysayba kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisa keenay wuxuu iga duubay filin aniga oo maaragtay aan hayn qof maaragtay halkii ah marka kadib wuxuu iga duubay filin buu iga duubay goorta filinkii waxaan ku dhaaday iga duubay kadib maan ogeyn uu iga qariyay kamida gabdhaha laga duubay muuqaal galma ah lana siiyay daroogo ayaa waxa ay u dacwootay dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab kadib markii dhowr mar CID-da iyo sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir ay u dacwootay laakiin dacwadeeda wax laga qaadi waayay ninka dhibaatada u geystay si dagan muuqaalka u daawo kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta awoodaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo الله سبحانه وتعالى عن كبرينا أموره لا ده إلهي نوسلا إلهي سبحانه وتعالى أولاد وبركة أنت أولاد دون كان إلهي أولاد باري هسي أنت جردون كان جور وناكسني مستقبل وناكسني بوين هسيو غفر بموقالك شيرتك وقبت الله جريانا وعن ربي سبحانه وتعالى عن كبرينا بل الدنيا يسفل إنه إلهي سبحانه وتعالى وسيا دنبي جودي دنبي والد كودنا بولا فربي سبحانه وتعالى أنا وكعزما جنة الفردوس الأعلى حاسدك وعلينا هو من شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بين يهوغي غسارة ورب سبحانه وتعالى عن كاقبرينا انت عنوصلنا رب سبحانه وتعالى حنون كاقد القاضة أمد صوماليين ميلو ربو يجوكتو رب سبحانه وتعالى قرقار كيسي نسري كيسي بوينها سيو ميلكا ميدا قدها صوماليا وحامدوين كي دنبكا دعايات تعديا لو جيسان اياها وينكا صوماليات وحين تعديا دي اسكوكو جران كفسي بريرا او قبدا قاركود لو جيسان اياها ايضا قار كميدا قبدها لكفصدين اي ديلين كوبا ارحان لابيال oo ku dheelaya magaca ragga Soomaaliyeed ayadoo sidoo kale ay jiraan shabakado qatar ah oo ka dhisan meelo kala duwan oo Soomaaliya ah kuwaasi oo gabdhaha ka duuba muuqaalo galma ah waxa qaarkood arinta la yaab kale ay tahay inay u sameeyaan meher beenaad si gabadha ay u siiyaan kalsooni waxana muuqaaladaasi qaarkood la iskugu diraa meelo ay kamid tahay messengerka Facebook iyo meelo kale oo baraha bulshada ay isticmaasho qof walbana wuxuu arki karaa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo lagu sameeyay dhibaatadaasi waxay dadka qaarkiis ay u haystaan gabdhaha inay raali ka yihiin marka la sameynayo waxan lagana duubayo muuqaalada laakiin kooxdan uu madaxda ka yahay Cabdullaahi Maxamed Cali waxay sameeyaan meher beenaad gabdhaha ay u sameeyaan ayagoo u sheegay inay ka tirsan yihiin dawladda Soomaaliya isla markaana u qaadi doonaan safarro xagga dibadda inay u soo dhameynayaan fiisooyin Turkiga iyo dalal kale koox kale oo qatar ayaa iyadana jirta waxayna kooxdaasi ay sameeyaan in gabdhaha ay siiyaan darooga cabitaan ay waxay ugu daraan daroogo gabadha markii daroogadaasi la siiyay kadibna waxay ka duubaan muuqaaladaasina waxay ugu sameeyaan qaab rakaata ahaan waxaana labadan shabakadood ay ka wadi sameeyeen in gabdhaha ay ku sameeyaan rakaato shirkad kamid ah waxay gabdhaha ay ka qaataan lacag baad ah ayadoona isla markaasi gabdhaha qaarkood ay ku amraan in dahabka iyo waxa muhiimka ay yaala guryaha ay u soo qaadaan halka qaarka kalena ay ku qasbaan in mar walba ay u galmoodaan hadii kalena muuqaalada ay shaacin doonaan taas oo keentay in baraha bulshada lagu shaaciyo muuqaaladaasi qaar kamid ah gabdho badanna wali waxay ku jiraan rakaatada ayadoona laga qaato lacag madax furasho ama lacag baad oo joogto ah qaarkoodna galma si sharci darro ah ayaa lagu qaataa hadii kalena waxa lagu handadayaa in muuqaaladooda la shaacin doono mid kamid ah gabdhahaasi oo aan magaceeda u sheegaynin sabab la xiriira ilaalinta sharafkeeda ayaa waxa ay u tagtay dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab gaar ahaan xarun maxkamada ay ku leeyihiin degmo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe laakiin ka hor waxay aaday xarunta dambi baarista CID-da ee magaalada Muqdisho waxayna ku dacweysay ninka arintan ku sameeyay Cabdullaahi laakiin CID-da ayaa Cabdullaahi markay soo xirtay kadib waxay ku sii deysay lacag madax furasho ayadoona sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir ay xeerlaalinta qaranka ku dacweysay in wax lagaga qabto ninkan dhibaatada ku haya rakaatadana ku haysta kana duubay muuqaal galma ah waxa Cabdullaahi dhowr mar lagu xiray CID-da asoo loo haysto in gabdho badan muuqaal uu ka duubay isla markaana rakaato uu ku haysta qaar kalena uu ku shaaciyay baraha bulshada laakiin CID-da ayaa iska sii deysay Cabdullaahi kadib markuu bixiyay lacag kamid ah lacagihii uu ka qaaday gabdhaha uuna ku dhibaateeyay taas ayaa keentay gabadhan inay u dacwoodo dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana la ii sheegtay in maalin ka hor ay aaday maxkamad al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe waxayna dhankeeda ay sheegaysaa inay cadaalad ka filayso al-shabaab oo ay sugayso in ninkan wax ay kaga qabtaan maadaama rakaato culus uu ku haysto dad badan oo Soomaaliyeed oo ku sugan koonfurta iyo bartamaha
soomaaliya ayaa u dacwooda meelo kala duwan oo fadhiisin ay ku leeyihiin dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab islamarkaana maxkamada u ah waxaana ugu badan dadka ku sugan magaalada muqdisho ee isku qabsada dhulalka ama dacwadaha kale ee madaniga kuwaas oo ku jahwareeray maxkamadaha dowladda ee gobolka banaadir ku yaal kadib markii ay naqatay bixinta lacago joogto ah oo laaluusha taas oo keentay inay aadaan dhulka al-shabaab islamarkaana ay u kala dacwoodaan jenaraal sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde ayaa kol hore warbaahinta muqdisho wuxuu u sheegay xilli maxkamadda gobolka banaadir ay ka furneed dacwad xagga dhulka ah oo shakhsiyaad kale ay isku haysteen in maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadaha dowladda ay ka cadaalad fiican tahay midda al-shabaab haddii al-shabaab ay ammaangelinayaanna uu u dacwoon lahaa dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab taas oo muujinaysa in maxkamadaha al-shabaab dad badan ee dacwado ay u aadaan oo ay u dacwad tagaan ila xoogaalah ayaa inoo xaqiijiyey in dad badan ay aadaan maxkamadahaasi al-shabaabka ay maamulaan kuwaasi oo door biday in wax un cadaalad ay ka helaan maadaama maxkamadda gobolka banaadir lacaga joogto ah lagu bixinayo laaluush haddaad maanta bixisid lacag 5,000 ah qofka kale aad ishaysataanna uu bixiyo mid 10,000 oo dollar waxaa kaa gubanaya lacagtii 5,000 ee aad bixisay oo waxaa loo xukumaya wixii qofkii bixiyey 10,000 kii 10,000 bixiyey haddii maxkamadda racfaanka haddana aad aadid oo aad bixisid 10,000 uu bixiyo mid la mid ah uu bixiyo 20,000 ama 30,000 waxaa la siinayaa isla asigii taas oo dad badan dhibaato xoogan ay ku tahay waxaana qayb ka ah haweenka iyo weliba gabdhaha Soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan ay ku hayaan kuwa ceebeynaya magaca ragga Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dheelaya sharafka gabdhaheena wanaagsan ee Soomaaliyeed waxaase dawladda Soomaaliya aan ka rajaynaynaa inay hagaajiso hay'adaheeda garsoorka iyo sidoo kale xarunta dambe baarista CID ee Muqdisho oo qayb ka ah meelaha lagu tuhmayay inay ka jiraan corruptionka iyo musuqmaasuqa laakiin dawladda Soomaaliya waxa la sheegayaa inaysan jaanis u haynin tacadiyada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed oo iskugu jira kufs in laga duubo muuqaalo galma ah ayagoo la siiyay daroogo in rakaato kale gabdhaha lagu haysto iyo weliba waxyaalo aad u badan oo haweenka Soomaaliyeed loo geysto waase muhiim dawladda inay ka qayb qaadato ilaalinta xuquuqda dumarka Soomaaliyeed